kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad waa barnaamijkii galabnimo waxaynu kusoo gudbinaynaa akhbaaraadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn taariikhdu waa 21 bisha 7 2016 waxaynu ku bilaabaynaa warar cusub oo soo kordhay askar cusub oo Mareykan oo la qaramsaday diyaarad la burburiyay iyo xaalka bariga dhexe halka uu marayo haddaba warbixinta ugu horeysa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa telefishinka ruushka ee la yiraahdo RT ayaa qoray ciidanka ilaalada kacaanka Iran inay sheegeen goor dhawey in markaa askar cusub oo Mareykan la dilay sidoo kalena la burburiyay diyaarad nooceedu yahay F-15 waxaana arintani ay ka dhacaysaa wadanka Urdun ayay ka dhacday sidoo kale waxaa la duqeeyay deegaanka la yiraahdo Amazon oo ku yaala dhankaasi iyo Bahrain haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan Iran waxay ku dhawaaqday inay dishay askar cusub oo Mareykan ah ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa sheegay maantay inay dhowr askari oo Mareykan ah ku dileen weerar ay ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo Rukban ee dalkaasi Urdun ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa war saxaafadeed ay soo saareen goordhow waxay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen xero hooy u ah ciidankaasi oo ay isticmaalayeen ciidamada Mareykanka waxaana la sheegay xeradaasu inay ku taalo deegaanka la yiraahdo Rukban oo markaa ka tirsan wadanka Urdun dowladda Mareykanka weli ma aysan ka jawaabin sheegashada ciidanka ilaalada kacaanka Iran sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saareen ciidamada Mareykanka 17kii bishan weeraro ay Iran ku qaaday gantaalo ridada dhaadheer iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa lagu dilay askar kale oo ciidamada Mareykanka ah sheekadu markaa way kulushahay Iran waxay leedahay maantay waxaynu mar kale dubanay askar Mareykan qaramsanay meel hooy u ah oo ay deganaayeen ayaynu la helnay baash nagtaa ka saaran diyaarad kale oo F-15 oo diyaaradaha maaragtay wax bamgareeya oo Mareykanku uu leeyahay iyaduna meesha taala ayaan iyaduna nagta ka saarnay marka Mareykanka ilaa hadda war lagama hayo afkiiba juqda gabay kullay way beenin doonaan ama way hadli doonaan ama wax yara dhintay dhihi doonaan waxay dhihi doonaan lama yaqaano laakiin warkanu waa cusub yahayo waxa leeyahay askarta ayaa la qararamsaday oo meesha lagu qararamsaday sheekadaas marka halkaasay joogtaa warbixin kale oo isla qasaaraha ciidamada Mareykanka ayaa waxa baahiyay wasaaradda dagaalka ama wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ilaa Pentagonka haddaba wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsad ayaa wuxuu sheegay in la sheegay inay dhaawacmeen 100 kamid ah ciidamada Mareykanka toddobaadyadii ugu dambeeyay Trumpna waxa uu wacd ku maray Iran inay ka shalaay doonto falka ay sameeyeen haddaba wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxay sheegtay in 100 kamid ah ciidanka militariga Mareykanka ay dhaawacmeen toddobaadyadii la soo dhaafay waxaana la sheegay qaar kamid ah ciidankaasu inay dib u bilaabeen oo hawlahoodii ku noqdeen markii dhaawacu uu ahaa mid fudud haddaba dhanka kale waxaa la sheegay wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegaysaa in la dilay dagaalka Iran intuu socday 17 kamid ah ciidamada Mareykanka waxaana la sheegay in arintani ay ugu dambeysay markii askari la waayay la helay qayb kamid ah jirkiisa kaasoo la sheegay in xisaabta uu ka dhigay 17 warkan oo wasaaradda gaashaandhigga ay soo saartay saacada ka hor isagu wuxuu joogaa askarigii la helay iyo kuwii Ciraaq halkii askari Ciraaq lagu dilay iyo kuwii Urdun waxa jooga sheekada maanta dhacaysa oo ciidanka ilaalada kacaanka ay leeyihiin diyaaradan qararamsanay askaran qararamsanay warkoodii lagama hayo nimanka sheekadu marka halkaasay joogtaa wararka kale ee soo kordhay iyana waxaa kamid ah inay socdaan markan
dadaalo ku saabsan xabad joojin. marka ragga khubarada waxay leeyihiin Trump wuxuusan raalli ka ahayn dowladahan ma wadaan. macnaha odaga markii la kululeeyay uu arka xaaladdu inay cirka gashay oo maalin walba askar la qararamsanayo ayaa hadda waxaa soo baxay warar sheegaya 10 beri oo xabad joojin ah si wada hadaladii iyo wixii iyo loo furo. haddaba marka sheekada waa la isku fahmay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ku saabsan wada hadaladan la sheegayo. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay wakaaladda la yiraahdo Axios ee wararka Mareykanka ayaa waxay baahisay in laga shaqeynayo xabad joojin 10 maalmood ah taasoo dhex maraysa Washington iyo Tehran. haddaba waxaana sidoo kale laga shaqeynayaa arrinta ku saabsan Hormuz iyo sida loo xalinayo sheekadeeda. haddaba wargeyskan ama wakaaladdan Axios la leeyahay ayaa talaadada maanta ah waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa warbixino muhiim ah in dowladaha Qatar, Masar, Pakistan iyo kuwo kale oo gobolka ah la sheegay inay Mareykanka iyo Iiraan ku cadaadinayaan in bal xabad joojin 10 maalmood la gaaro si xal loogu helo xiisada taagan. marka 10 beri xabad joojina ayaa marka waxaa wadaa lagu leeyahay Pakistan iyo Masar iyo dowladahan iyo Qatar iyo ayaa wadaan. marka dowlado kale oo gobolka sida Turkiga iyo Sacuudiga iyo awalba shaqada ku shaqeynayeen ay hawsha wadaan. marka sheekadan marka yaa ka dambeeya daaha gadaashiisa qofka taagan oo arintan in la xalliyo oo xabad joojinta la galo markii la kulleeyaa way macalinka weyn asaga hawsha wad. Iiraan marka waa fahamtay waxa kaliya ee Trump fahmay iyo kooxdiisa Iiraan ka jirta. isla markii sheekadan ay soo baxday madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa war soo saaray. haddaba marka aan idin tuso Pezeshkian warka uu soo saaray oo arrimahan wada hadallada ku saabsan. madaxweynaha Iiraan ayaa wuxuu sheegay markii guuldarro ay soo gaartay cadawgu in markaa uu ku fashilmay ujeedooyinkiisii dagaalka ayaa wuxuu la yimid ayuu leeyahay inuu u weecdo dhanka wada hadalka. haddaba cadawgu wuxuu nagu soo rogay ayuu leeyahay dagaal oo dhammaystiran oo ujeedadiisu tahay in la abuuro cadaadis gudaha ah iyo burbur bulsho. haddaba guusha aan ka gaarnay dagaalka waxay markaa ku xiran tahay oo ay muujinaysaa midnimada iyo isku xirnaanta gudaha dadkeena. madaxweynaha Iiraan wuxuu sheegay in ku guuldaraysiga cadawga uu ku guuldaraystay inuu gaari waayay ujeedooyinkiisii dagaalka ayaa horseeday ayuu leeyahay inuu hadda u weecdo dhanka wada xaajoodka iyo wada hadalka. cadawgu wuxuu doonayaa inuu burburiyo dalkeena isagoo bartilmaameedsaday kaabayaasheena dhaqaalaha. intii lagu guda jiray kulamadeenii hore hogaamiyaha sare wuxuu ku nuuxnuuxsaday in markaa ay yihiin dad isku xiran Iiraaniyiinta. xiriirka aniga igala dhaxeeya hogaamiyaha Iiraan Ayatullaahiga wuxuu yiri dhammaan go'aanadan dowladdu ay ku shaqeyso waxay ku salaysan yihiin tilmaamaha uu bixiyo Ayatullaahiga. guulihii aan ka gaarnay wada hadallada waxay markaa muujinayaan fashilka Mareykanka. qaar ka mid ah hadallada gudaha ayaa hoos waxay u dhigeen guulaha arrimaha taagan. haddaba arikan hadda wuxuu sheegay wada xaajoodiyada hadda la hadalhayo in uu isagu doonayo cadawga sida uu yiri inuu markaa wada xaajoodka u jihaysto. marka Mas'uud Pezeshkian hadalkiisa dhowr nuqdo ayaa ku jirta oo muhiim ah markaan aad u feerinay. marka dhowrka nuqdo waxa kamid ah kow wada xaajoodiyada hadda socdo inaysan Iiraan dalban ayuu cadeynaya. uu leeyahay cadawga ayaa wuxuu u weecday markuu dagaalkeena ku jabay oo dhagaha ka garaacnay wada xaajoodu aaday. kow wada xaajoodka marka sidii lagu aamini karo tii horaba meesha taala moogtay marka wada xaajoodka isaga aaduu leeyahay. midda kale maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta qaar kuwa reer galbeedka kuwa Israa'iil waxay hadalhayeen in khilaaf uu ka dhex jiro madaxda Iiraan madaxweynaha iyo gruubkiisa iyo Ayatullaahiga iyo kooxdiisa saasay u kala saarayeen. ninkan marka si clear u cadeeyay wuxuu dhahay awaamiirta dawladdu ku shaqeyso waa tilmaamaha Ayatullaahi al-Murshid al-A'la
المرشد هو آية الله تلمامه شاكو شغينا ويلو kulamadeenun iyo wada xiriirkeenuna boqolkiiba boqol waay tilmaamaha dawladdu ku shaqaysana waa tilmaamaha aayatullaahi annagu maxaan nahay dad adeegayaal aan nahay aayatullaahi ninka ugu sarreeya waddanka ah marka sheekada meelaha la wadooda marka waxa ka jira ma loo leeyahay marka sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa haddaba marka maxaa kaloo cusub dhanka marinbiyoodka Hormuz waxaa la sheegayaa saacadii la soo dhaafay dhowr markab inay gantaala ku dhaceen qaar ay gubteen kadibna wax dhaqdhaqaaq oo meesha ka jira ma jiraan Hormuz alkatiinato way katiinada ugu xiran ay qufula u saaran Iran American wuxuu rabaa sabay habeenkii tobnaada weeraray kana weeraray habeenkii sagaalaada weeraray soo weerar adig laakiin wadadan ma furi kartaa tabar ma haysaa ma jirto xaqiiqadu marka waa taas ujeedada dagaalka loo bilaabay sidiisaba horena waa idin kugu sheegay American inuu xoog ku furo Hormuz uu rabay marka sheekada way u hagaagi weys haddaba marka barnaamijkeennii labaad inta ayaynu kusoo gabagabaynaynaa la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka waan hubaa inaad ka hesheen macluumaadkii wararkii barnaamijkaygii koobaad aanu kusoo gudbinay inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan